bismillahi raxmaan raxiim marka hore aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa warbaahintan maanta oo dhan taagnayd sonsaf oo runtii aad iyo aad isaga xil saartay maanta doorashadii samaysayna madal mar walba lagala hadli karo dadka intaa kadib runtii doorashooyinkii ama doorashadii way officially way inoo soo xidhantay waxaa waktigii sharcigu ahaana de waa la gaadhay 6dii galabnimo ee galabta doorashadii waxay usoo xidhantay si official ah waxaa jira goobo kayugoodu ama dadku uu taagnaa sharciguna wuxuu dhigayaa 6da galabnimo meeshii ay joogaan muwaadiniin aan codaynini in askari xagga dambe laga dhigo dabeedna ay codkooda dhiibtaan waktina kuma xidhna oo ilaa inta ay ku dhamaysanayaan weye lakiin waxaanu halkan ka sheegeynaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin in doorashadii soo dhammaatay si officialna usoo xidhantay goobaha yaryar mooye ay soo wada xidhmeen si nabadgelyaana kusoo xidhmeen halkan waxaanu runtii uga mahadnaqaynaa dhammaanba somalilan guul ayaanu leenahay somalilan baa guulaysatay shacabkeeda ayaa mudan oo aanu u mahadnaqaynaa nabadgelyada ku codeeyey sida mugga iyo miisaan kale doorashada ugu soo baxay ee codkooda u dhiibtay insha allah ay inoo soo bixi doonaan xildhibaano ay inoo soo xuleen oo wanaagsan intaa waxaan raacinayaa halkan waxaan dardaaran kama dambaysa uga dirayaa howlwadeenada iyo tiimka commissionka meel walay joogaanba waxaan leeyahay maanta mas-uuliyaddu way inoo qeybsanayd innagiyo shacabkuna waa codeynayey innaguna waynu hawshaynu wadnay haddeerta somalilan mas-uuliyaddii ay inaga sugaysay bay inagu soo wareegtay waxaan idinkula dardaarmayaa in dhaartii aynu maray iyo cadaaladaynu ku ballan qaadnay iyo dhexdhexaadnimadii codka lagu tiriyo qof waliba wuxuu xaq u leeyahy loogu tiriyo la ilaaliyo wanaaggaa shacabku uu inoo muujiyey iyo sidaa wanaagsan ay u codeeyeen qof waloo codeeyeyba inuu codkiisa halkii uu la doonay uu xaqiisa ku helo ayaan runtii kula dardaarmayaa waxaan kaloo u sheegayaa dhammaan guddoomiyeyaasha goobaha hawsha cusub ee hadda u bilaabmayso ee tirinta gelaya in mas-uuliyadda koowaad ay iyaga saaran tahay inay runtii muraaqibiinta xusbiyada ixtiraamaan inay tirinta iyo codadka ixtiraamaan in ay u ogolaadaan goobjoogayaasha la joogay ee la shaqaynayey inay tirinta kala qeyb galaan dhammaan xaq bay u leeyihiin waa sharci goobjoogaha maxalliga iyo goobjoogaha caalamigiiba haddii ay labadaa goobjooga joogayaan haddii ay iyagu iska tegayaanna xor bay u yihiin laakiin waxaan farayaa inay u ogolaadaan inay goobaha tirinta u ogolaadaan waxaan leeyahay mar labaad somalilan waa guulaysatay doorashadana waa ku guulaysanay mahadnaqeedana marka koowaad shacabkaa leh marka labaadna xusbiyada qarankaa leh marka saddexaadna xukuumadda iyo intii nagala soo shaqaysay oo ay ugu mudan yihiin dhalinyarada reer somalilan ee jaamacadaha ka baxday ciidamada amniga dhammaantoodba ciidamada somalilan waxgaradka iyo cid kasta oo gacan ka geysatayba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa siduu u sheegay guddoomiyaha commissionku kole ninka wasaaradda daakhiliga qolada ugu horeysa ee sida tooska ay u wada shaqeeyaan commissionku ayaan ka mid nahay waanaan ka wada soconnaa xaaladan oo dhan waynu la soconnaayoo saaka xilligii xeerka doorashooyinka uu qorayey ayay bilaabantay doorashadii 7 saacadood
si nabadgelyo leh ayay uga bilaabantay dhammaan gobollada dalka oo dhan. waxaa laga codeynayay 2709 goobo. si wanaagsan ayay uga dhamaatay. labada goobood oo qura ayaan codbixintii looga dareerin oo gobolka sool degmada xudun ka tirsan. labadaa goloodna waxaa looga cabsooday in xoogaa qalaanqal nabadgelye ay ka yimaadaan, in alaaliya intii kale goobaha dalka ee 6 gobol doorasho ee dhammaan degmooyinka degmo doorasho si fiican baa looga codeeyey. waxaa ka howlgelayay ilaa 10,000 oo ciidana in ka badan. waxaa ka howlgelayay tiro 30,000 ku dhow oo shaqaalaha komishanka, bulshada rayidka ah, maxaanku dhahday goobjoogayaasha maxalliga ah ka midka ah. waa inta reer somalilan ee si toosa uga shaqaynaysay doorashada ayaa ku jirtay. waxay noqonaysaa markaa tira dhowr iyo 40,000 oo qof ayaa inooga shaqaynayay. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa, ilaahay ugu xamdi naqaynaa inuu doorashadii inoogu dhammaatay si nabadgelye ah. waxaan odhan karayaa doorashadani waa doorashadii ugu horeysay ee shacabka reer somalilan qof isdileen iyo shil qura oo ka dhacay doorashada iyo fal qura oo ka dhacay doorashada iyo ilaalintii ciidamadii nabadgelyada ilaalinayay iyo mid ka dhacay iyo komishinkii doorashada aanu jirin. waana doorashadii ugu cuslayd ee laba gole oo la dooranayay ahayd 987 xildhibaan oo golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada ah ayaa 3 xusbi qaran ka sharaxnaa. waa doorasho aad iyo aad u culus. nabadgelya inagu dhaaftay. ilaahay baynu baranay, ilaahay wuu inaga aqbalay. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. guushaa waxaa leh shacabka reer somalilan. waan ugu mahadnaqaynaa inay si wanaagsan in ay meesha maanta soo baxday, inaynu doorashadii 7aad u dareernay, in ay soo baxday waayo aragnimadii iyo ilbaxnimadii iyo kalsoonidii ummadda reer somalilan. waxaa soo baxday in komishanka doorashooyinku doorashada uu u qabanqaabiyey si aad iyo aad mug leh oo maamuus leh oo milgo leh. waxaa soo baxday in xukuumadda somalilan doorashadan ay qeybtii ugu weyneyd ka qaadatay. oo idinla socotaan doorashadan marka laga reebo hay-adaha sida maxaanku dhahda nagaad, sonsof, civil society-ga dhaqaale aan badnayn oo ay international community-gu ku caawiyeen iyo wax kooban oo ay ku caawiyeen komishanka doorashooyinka. waxa ay ahaan jirtay in somalilan ay bixiso 25%, international community-guna inay bixiso 75%. maanta way isdhaaftay. dowladda somalilan waxay bixisay 75%. international community-guna wuu ku mahadsan yahay. dowladda somalilandna way ku mahadsan tahay. madaxweynuhu wuu ku mahadsan yahay. waayo waxaynu doonaynaa in aynu lahaano ownershipka, lahaanshaha doorashooyinkeena reer somalilan inaynu inaku lahaano. saynu inaku lahaanana waa inaynu dhaqaalaheeda iska bixino. waxaan u malaynaya doorka inta ku xigtana waxay dowladda somalilan bixin doontaa 100% ayay bixin doontaa. way idinla socotaan. aad baa loo xiiseynayaa. goobjoogayaal 100 iyo googo-a baa inoo yimi. aad iyo aad bay u fiican yihiin. aad iyo aad bay si muddo kale bay ula yaaban yihiin doorashada somalilan siday ku dhammaatay. nabadgelyay ku tageen, nabadgelyay ku soo xeroodeen. 7 saacadood way soo wada galeen. 7 iyagu maxaanku dhahda ayay shir leeyihiin. goobihii sidaa guddoomiyaha komishanka u sheegay bay usoo wada xidhmeen. sida xeerku qorayana goobaha ay dadku joogaan askari baa xagga dambe laga dhigayaayo ilaa dadka kuyuuga ku jira ay dhammaanayaan ayay doorashada ku jirayaan. waxaa inoo hadhay marxaladii guddoomiyaha uu ka sheekeynayey ee ah tirintu waxna komishankaa leh, xusbiyaduna goobjoogayaasha iyo muraaqibiinta tirinta u joogaye codadka kala tirsanaya bay ka mid noqonayaan. hal arrin waxaan farayaa musharaxiinta 3 xusbiga
way soo shaqeeyeen way soo ololeyseen si nabadgelyo leh oo deganaansho leh oo milgiya maamuus leh ayay doorashadii ku gasheen taageerayaashiinii nin walba wixii alla u calfayna sanduuqa way u galeen musharaxiinta waxaa laga doonayaa sida gobonimada leh doorashada ay u galeen in wixii alla qorayna calafna waa wixii alla qoro in ay ku sugaan doorashada natiijada kama dambaysta ah ee ku soo baxaysa